iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay wasaaradda hawlaha guddulka iyo guryeynta Somaliland ay ka waday magaalada Wajaale qorshe magaaleyn ama master plan lagu sameeyay magaaladaasi ayaa maanta wasiirka wasaaradda hawlaha guddulka iyo guryeynta Somaliland uu ka hadlay halka ay marayso qorshe magaaleynta lagu sameeyo magaaladaasi Wajaale waxaanu gabagabaynay bacdihii iyo suuqii dhexe ee weynaa ee Wajaale waxaanu u gudbaynaa xaafadaha wadooyinkii waa calaamadina bariga iyo galbeedka iyo waqooyiga sida daraadeed waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha reer Wajaale inay wadooyinka bandeeyaan wixii la isugu yimaadaan guri wada ku jira laakiin marka hore wadadu ay bannaan tahay yaanu la socodsiin waa la calaamadinayaa maanta calaamadii waa ku socota barigana dhaqsaad u gabagabaynayo waxaanu aadinaa dhinaca galbeedka iyo dhinaca waqooyiga oo iyagu ka hawl yar dhinaca bariga sida daraadeed hal loo diyaar garoobo inaan uu berri bilaabayno bariga iyo galbeedka iyo waqooyiga qorshe magaaleynta lagu sameeyo magaalada Wajaale oo lagu banaynayo jidadka suuqyada iyo xaafadaha magaaladaasi Wajaale isla markaasina ay cagafyada halkaasi la geliyay dhulka ku simeen dhismayaal aad u tiro badan ayaa waxa sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi gudoomiye ku xigeenka degmadaasi injineer ka socda wasaaradda hawlaha guddulka iyo guryeynta Somaliland madaxweyne aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waad wada jeedaan baan u malaynayaa waxa ka socda magaalada Wajaale dhammaan ilaa halkaa imika fooqa intaa oo dhanba wada xidhay wadadina waa la wada baneeyo waad arkaysaa ridid ma hirtiin dadweynaha reer Wajaale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa arrintaasi ay qaateen ee tawbalaynka أنا قفنا ونكاه حرمانين مهدناك وين بان سو جدينيا Somaliland دمان تدنا تصالح في عم بيوتان كواحد ودنا فلوليه نظافته وهرجسان وتصور ولا وايد تيرة جب دي وجود بيسي إني كوحي كابتن بيه واحد نقول دونا حافظه يقولون وطوي مباهن وطوي كحافظه أنا وحلنا هاي تدوينها حافظها بجد وعم شيءنا نور بواين وفضيه إنك أي كوضة دعوة ودري سكوري سكور دعوة كل بالسنة وأنا لو بدلي سأدر هذا وأنا في ضيان فيس كيكوات مقالة بديه ونور دماغي مركان ما تيها فاروقنا waxaanu mahadnaqaynaa shacbigii ganacsatada ahaa ee gacanta naga siiyay hawsha fulinteeda mar labaad dadweynaha reer Wajaale waxaanu ku codsanaynaa xaafadaha qaybta waqooyi iyo qaybta bari iyo qaybta galbeed wixii wadda ku aadan tahay inay ka sii diyaar garoobaan oo ay ka gurtaan siiba oodaha jingadaha aqalada aynu isugu nimaadno لكن وحي صدق maanta afar iskurugo iyo saddex cagaf ay ka wada hawl galiyaan si magaalada qashinka aan uga saarno oo geeyno dadka qashinka had bay noo tahay hadana maamulka Wajaale nahay waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku dhiiraday inuu master plan u sameeyo degmada Wajaale waxaan ka warqabnaa qabkii cuslaa ee nagu dhacay waxa weeye waxay ku timid plan la'aan bay ku timid waxa weeye inaynu ka sii dugnaano weeye madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hadaan maamulka Wajaale nahay shaqada wasaaradda mustaqbalka ee hawlaha guddulka ee magaalada degmada Wajaale maanta waxay gashay maalintii toddobaad ee xilliga hadda waxa ku sugan qofkii hogaaminaya wasaaradda hawlaha oo shaqada si xiriira ula socday oo maalinta sanad kormeer ku hayay Somaliland inteeda kale wasaaradda hawlaha waxay degmo kasta iyo magaalo kasta u geli doontaa mustaqbalka qurux badan oo wadaan u wada heli lahayn degmo qurux badan gobol qurux badan magaalo qurux badan hadda uu gaari lahayd Somaliland qurux badan Zakariya Nuux Ibrahim Somali Cable degmada Wajaale